السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي إذا قالي كسو دواد الشانل كيغا وولاشي نعيمة قعمة فرن إيه قلبي فرن أصحابي ما انتو حيني وذا عبتان كان قروح ضبضان ما شاء الله ومركز أفوريس عبي كرتد سحور عبي كرتد وحواي علوش حيرتو كاجرة وحواينا ريفريشنج وأونكو كاسارة ما شاء الله آدي أذا وهلي دونتين سودو دوادا. بسم الله إن أصحابي عبتان كان ما انتحوك كوين هاي مينت أما نعنعت أو تقانت إن وحاكلو استعمالنا قجار وحانك شيداننا لما دنان كلاس لين دنانا سوميرته ما شاء الله إن هاتو حنسميننا نعنعان كبحنينا ستامك أم لانتا وحارمنا عليمها كرمنا لكن مكا استعمالي سد إن راشين كعمل واجران كرتا استامك أنت أنا عاوتانا كرمنا مكا مرة وإن لانتا دن ما شاء الله أصحابي سداس أنكو صدمينا waxaa isticmaalina liin laba nooc liinteen caadiga oo Soomaali iyo liinta wadankan ka baxdo cabitaankan ee asxaabteedu wuxuu fiican yahay xeerto ka dhimaya body fatka wuxuu kaloo ku siinaa refreshing haradku ka bixinaya waa cabitaan heer sare waa cabitaan oo maasha Allah guriga ku samaysatid وعبتانada oo artificialka adigu maarmanaysid waxaan ku dhahaa galaaskaaga asoo qabow adaa cabtidaan ku dhahaa waaw yaa salaam waxaan ku dhahaa haraadka dhanaa kaa baxaya asxaabe laabta dhanaa kuu qaboobayso wax oo gaas oo kuu kicinayna ma leh maasha Allah asxaabteeda nacnaceena waan soo dhaqay biyaraan la soo dhigo waxaa rabaa inuu fresh ii ahaadaan ku dhahay hadda waxaan sameynaynaa qajaarka waxaan ka fiiqaynaa xoogaa qolofta haddaad ka fiiqin wuxuu isla wada noqonaa green haddaa rabtidiis waa ku wada dhaafsan kartaa laakiin aniga greenka badanaa nacaya qolofka dhanna ma ka wada fiiqin waan jarjaranaynaa alaabtan dhan waxaa la isku geenaa qalaadada ama blenderka ama makiinada cabitaanka waxayna fiican tahay inaa afurka ka hor 10 saac camal anaga hadaa Kenya joogno waxaan afurnaa 6:40 ama 6:38 marka waxaa fiican inaa 2 saac ka hor hagaajistid oo fridge-ka gelisid oo liinta dhanaankeeda nacnac isku soo dheelatirmaan oo isku milmaan oo balance qurux badan oo yeesho markaas heer sare noqona asxaabe insha Allah waad ka heli doontiin haddaad u baahantiin cabitaano badan oo cajabina oo qurux badan marka miiska saaratiin waad ka wada heli doontiin insha Allah hoos igu soo reebo waa inii soo wadaa hadda kan gabar abaa iga soo codsata dhinaca WhatsApp-ka maasha Allah asxaabteeda waxaan ku shubay galaaskii oo liin dhanaanta cabitaanka maasha Allah liin badan isticmaalaysaa liin aad ku decorate gareysid oo ku qurxsid garaafada iyo liin aad ku shiidatid meesha hadana liinta ugu shiidad waxaa ku shiidi kartaa daarta biyo laakiin liintina ku shiidida fiican markaas xaabay sokor aan ku darsado sokor hadaad rabin malab ku shiidi kartaa
een sokorta qiyaastada isticmaalaysa. waxaa kaloo ku dareena cusbo yar. cusbada waxay sameynaysaa ba isku balance gareynaysaa. maasha Allah ku asxaabi waa kaasa. wax biya kuma shubin hadeertaan. afaarahan rabaan isku soo shiido. maasha Allah si smooth u soo shiidayna insha Allah. kadib sida kale u sameynsanayna isla arki doona asxaabteedan jeclahay. soo dhawaada. asxaabay hadda waxaan sameynaynaa haduu Ilaahay idmo qajaarka aan ku quruxsan lahayn garaafada cabitaankeen waan soo shiidanay. marka hadda waxaan sameysanaynaa sida kale oo hagaajisan lahayn. waxaan isticmaaloonaa hal xabo qajaar. afaarahan maxaa la alaabtaanito waad ka badsan kartaa. alaabta hadda isticmaaleyno qajaarka waa badsan kartaa. minti waa ka badsan kartaa. liinta waa badsan kartaa. adiga familkaaga ku xiran yahay. anaa dad badan ma nihiin marka hal garaafaan ugu filan. marka waxaan si yar oo u jarjareynaa insha Allah oo qafiif ah. waayo hadhoodi markaa galaaska ka cabto waa cuni kartaa. maasha Allah asxaabe waa kaas waa soo dhameynay qajaarkeena dhamaa. waxaan sameynaynaa garaafada aad isticmaalaysid aad ku ridaysaa. haddii aad rabtid dhowr garaaf waa ka dhigan kartaa. hadda anaga ma ka hagaajisanay xoogaa tiko ahaa ama culsaa. marka qiyaasta adaa qiyaasanaysid insha Allah aan hadda waan tusinaa keli. marka sida inigu sheegay cabitaankan aad iyo aad u fiican yahay ku dhan maqaarka. xeertu ka jaraya. waa ku caatoobaysaan ku dhahay. maasha Allah dal galaaska aan isticmaaleyno aan ku rito wax yar oo qajaar ah. intaan kalena waxaan sameynaynaa garaafada waa taasa aan ku wada shubana. waxaa kaloo ku ridayaa liin dhanaanta oon jarjarnay. cabitaankan aad iyo aad u fiican yahay. mar walba waxaan igula taliyaa waxyaalaha naturalka ah cabitaanada oo organic inaad samaysatid. ha ka cabsan cabitaankan wax gaas male asxaabe. waa isku dheelitiran yaan ku dhahay. waad ka heli doontiin insha Allah fiidiyoyaal badan oo qurqurux badan oo ina cajabi doona way soo socdaan. stay tuned asxaabteeda. u share garee asxaabtaada kale iyo familka kale si u ogaadaan channelkeena. hanaga baqin share gareenta. waxaan naftaada la jeceshahay walaalkaana la jeclaa. marka asxaabe liinti aan soo jarjarana garaafada ku shubanaynaa. sa inigu sheega cabitaankan wuxuu fiican yahay saacado ka hor inaad samaysatid oo fridge-ka aad gelisid. asxaabteeda waxaan ku soo riday baraf. laba cad oo waaweyn oo baraf ah ku soo riday. waxaan ku soo riday oo kale mintiga ama nacnaci. marka waxaa la sameynayaa qaandaa qaadanaysaa liinta iyo inaa biyaha liinta ka soo baxdo waa liinta oo ku ridane iyo qajaarki iyo nacnaci
marka waa isku dhex gelinaysaa ku dha asxaaba iyo barafkii wax yaroo biyo u celiye waxaan arkinay thick tahay oo culus tahay maasha Allah asxaabteeda marka cabitaankeena soo hagaajina oo soo shubana waa kaasaas quruxda badan oo kusoo baxan ku dha qofkii loo geeyo soo ma celinayo waa cabitaan healthy ah waa cabitaan qurux badan adaa miiska geesid asxaabta iyo familiga dhan waa ka wada helayaan saa inugu sheega cabitaankan wuxuu fiican yahay inaa qaboojisto soo qaboob cabsidan ku dha laabtana ku qaboobas wax kaas ma leh waa cabitaan maasha Allah oo xeerta ka jarayso waa cabitaan refreshing ah haddii aad ugu cusub tahay soo dhawaaw gacmo furan iyo qalbi furan kusoo biir familka subscribe ka taawo kadib gambaleelka agtiisa riix cajalkan hadaad ka heshay like-ta noo saar hoos comment ka soo bixi hadaa cabitaano noocyada camal aa rabtid u sheer garee asxaabtaada kaliya halkaa kale ramadaan kariim asxaabteeda intaa video isku kulmeen waxaan idin tagaa assalaamu calaykum